شاء الله شركة ما توقف كسابتنا تعدية اللوجيست قبلها الصوماليات وقبلها اللوجو جيست حبسجة يدو الأديك سنة أود ولدين والعكس يطلب بحيل الأديشة أيضا نتم بلهين حبسية اللي كلنا مركب وقشور وكتجة حبسية أيضا كوكو عركة قبل بدن ودرمان وحبسية وكجرة ووحشر أي كشريين يخدم كشريين على الجرنين arrintaas ayaan dabagal ku sameynay waxaan ku guuleysanay gabadha ugu horeysay inaan ka soo saarno xabsiga oo la geliyay xabsiga iyadoo leeyahay waxaa loo haystaa inay maaragtay ilmo xadi lahayd hase yeeshee cid ku mudduceysay iyo cid ku markhaati kacaysa aysan jirin dabadeedna xabsiga lacag inta la siiyey la geliyey oo xukun beena uu ku dhacay oo aan markhaati lahayn oo aan qodob lahayn dabadeedna gabadha inta ay maaragtay xabsiga ku jirtay iyadoo la xiray dabadeedna uurkii xabsiga inta ku jirtay ayuu ilmihii dhibaatadii iyo dayicii iyo rafaadkii meesha ka qabsaday ilmihii kasoo dhacay oo ka dhintay oo ay 12 maalmood ay ku dhex foolanaysay xabsiga dhexdiisa gabadhii ayaan lacag u ururinay waana ku guuleysanay inaan banaanka soo dhigno haddana waxaan rabnaa inaan looyar u qabanno u dooda gabadhaas iyo gabdhaha kaleba oo dulmiga ugu xiran xabsiga oo awoodda loo sheegto iyadoo aan laga fikiraynin xuquuqul insaanka iyo bini'aadanimada haween kale oo xabsiyada aad ku soo aragteen ma jirtaa marka laga yimaado haweeneyda waa ku soo aragnay waxaan ku soo aragnay gabdho loo haysto lacago la leeyahay ayuutay qaateen oo ayadana wax markhaati aan loo haysanin waxaa kaloo soo aragnay gabdho walaalo ah oo ay soo xireen niman walaalahooda ah oo loo geliyay meesha in guryo ay dhaxal ku lahaayeen la dhaxlado la gato inta iyaga ay xabsiga ku jiraan waxaan ku soo aragnay kuwa kale oo cid soo xirtay aan la garanaynin waxaasoo dhan oo dhib ah ayagoo Soomaali ah oo dawlad Soomaaliyeed hoos jooga ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ay ku haysataa dhibaatadaas xabsiyada loo adeegsanayo oo ciidanka inta lacag la siiyo oo xabsiga mataqaana loo gudbinayo maxkamadda laftigeeda lacag la siinayo oo xukun aan jirin inta la abuuro lagu tuuraayo xaqooda saa loogu tumanayo arrintaana waa arrin aad iyo aad u dhaawacaysa dadnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed xaq darro aan loo dulqaadan karin oo mar walba haweenka Soomaaliyeed ku dhacaysa goormaad ku baraarugteen idinku in aad booqataan xabsiyada oo aad ogaateen haweenka in dhibaatooyin ciidanka dawladda ay ugu geystaan waxaan ku ogaanay annaga ururka waxaa ka tirsan gabdho ciidamada ka tirsan ayaga ayaa warkan soo gaarsiiyey isla markaana loo fududeeyay inaan xabsiga booqano oo aan galno iyadoo wax wariye iyo mataqaana telefishin midna laga soo deynin waayo waxaan rabnay inaan ogaano bal xaqiiqada iyo waxa meesha ka socda saasaan ku helnay xogta batuula ma heshaan xog ku aadan in haween lagu dhex kufsaday xabsiyada waxyaalo badan oo aad u tacadiyo badan ay jiraan kufsigu maaha mid xabsi kaliya ku dhisan gabdhaha barakacayaasha iyagana kufsiga aad iyo aad ayaa loola beegsadaa gabdhuhu waa dulman yihiin meelay ula ciirsadaan iyo meelay la aadaanna ma laha insha allahu tacaala dadaalka iyo waxaa hadda aan ku jirno waa in gabdhuhu iscaawinaan oo ay isku caawinaan xuquuqdooda inay ilaashadaan xadgudubyadana iska difaacaan markaana dawladda laftigeeda lala xisaabtamo oo aan loo adeegsanin awoodda dawladda in gabdhaha lagu tacadiyo oo gabdhaha xuquuqdooda lagu doodsiyo oo aan ka hadalno oo aan abukaatayaal iyo sharci yaqaano oo haddaba ururka maaragtay la shaqeeya arrimahaas ay maaragtay dhinaca sharciga iyo sidii wax looga qaban lahaa ilaa mataqaana international community-ga in human mataqaana rights marbaad tiri in haweenka qaar baa lacag laga qaataa bal halkaas dul istaag ku samee sidee wax looga qaadaa maya waxaa la sameeyaa hadda lafteeda gabadhan aan soo daynay waxaa lagu xukumay lacag inay bixiso haddii ayna lacagtaas bixinina aan la sii dayn karaynin marka annaga lafteena lacag bixinay si xorriyadeedii ay ula soo noqoto laakiin lacagta aan bixinay ma aha mid aan ka daba harayno waa mid aan rabno inaan horta marka hore iyada ay banaanka markay ku soo baxdo xaquuqdeeda la arko looyaro loo qabto magdhowgii cuugii uga dhintay xabsiga tacadigii nafteeda la gaarsiiyey 3 sano oo xaquuqdeeda lagu tunto oo xabsiga lagu riday oo laga qaaday xaqi ay lahayd intaasoo dhan loogu dacwoodo eedda ugu weyn yaa iskale maxkamadaha masaraakiisha xabsiyada eedda ugu weyn waxa iskale maxkamadaha sababtoo ah qofka maxkamaddu markay xukumayso waa in la raaco sharciga maxkamaddu waa inay sharciga raacdo qofka la soo eedeeyo eedaysanihiisu qofkii soo eedeeyey iyo markhaatigiiba waa inay maxkamadda soo hor istaagaan hase yeeshee xukunka maxkamaddu waxay ridaysaa iyadoon qofkii eedeeyey iyo qofkii markhaatiga ka ahaaba aysan meesha joogin waayo waxaan arkaynaa in cadaaladii ayba meesha aysan oo wax cadaalad la yiraahdo qofkii lacag leh ay tahay haddaad lacag bixiso qofkaad rabtaan xabsiga gelinaysa